dhalinyarada daryeelka degmada Balad Xaawo oo iskood isku xilqaamay oo dhawaanahanba ka waday wacyigelin ku aadan sidii looga hortagi lahaa cudurka dunidu ay u taagweeday ee COVID-19 waxa ay maanta bulshada la wadaageen wacyigelin ku saabsan sidii looga hortagi lahaa cudurkaasi maadaama magaalada Mandheera oo xuduud la leh magaalada Balad Xaawo laga helay 2 ruux oo qabta cudurka maamulka degmada Balad Xaawo waxa ay amar ku bixiyeen in la xiro dhammaan goobaha ay bulshadu isugu yimaadaan si looga hortago faafidda cudurka coronavirus. waxaa looga digayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan degmada Balad Xaawo inay ka digtoonaadaan faafitaanka cudurka halista ah ee coronavirus. haddaba waxaa laga codsanayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Balad Xaawo inay laasimaan cibaadada Alle isla markaana ay akhristaan Quraanka Kariimka ah. marka labaad waxaa loo sheegayaa dadweynaha degmada Balad Xaawo inay ku faraxashaan biyo iyo saabuun. waxaa sidoo kale laga codsanayaa dadka inay ka feejignaadaan dadka ka soo gudbaya xuduudaha. sidoo kale dadweynaha waxaa laga codsanayaa inaysan tagin goobaha zaxmadda ama dadka isugu imaadaan sida maqaayadaha, goobaha aroosyada iyo sidoo kale wixii la mid ah. haddaba fariintani waxaa idiin soo gudbinaya dhalinyarada daryeelka degmada Balad Xaawo. wacyigelin cudurka halista ee coronavirus waxaa dhammaan laga codsanayaa dadweynaha Balad Xaawo inay dhaqan geliyaan qodobadan soo socda. qofka muslimka ee ku dhaqan degmada Balad Xaawo waa inuu laazimaa cibaadada akhristaana Quraanka Kariimka ah. waa in lagu faraxashaa biyo iyo saabuun qulqulaya. waa inaysan dadka tegin goobaha mashquulka badan ama wala isugu imaado. sidoo kale waxaa dadweynaha lagu wacyigelinayaa haddii aad isku aragto qufac, qandho iyo neef qabasho waa inaad iskarantiishaa lana xiriirtaa goobaha caafimaadka adigoo jooga gurigaaga. wacyigelintani waxaa taabagelinaya idiin